xaaladda cusub ee ka taagan dalka gaar ahaan fatahaadda webiyada Jubba iyo Shabeelle iyo dhibaatooyinka ku qabsaday dad badan oo Soomaaliyeed magaalooyin badan oo hadda dibka ugu culus ka muuqato gaar ahaan magaalada Beledweyne madaxda iyo culumaadiinta iyo haweenka isugu yimid shirkaasi waxa aan isku raacnay in aan u gurmarno dadka Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha dowladda Soomaaliyana awood walba ay hayso inay ku jihayso sidii dadkaas loogu gurma lahaa sida ugu dhaqsaha waxaa kaloo isku raacnay in la aasaaso guddi u gurmada dadkaas ay waxyeelladu gaareen oo ka kooban 22 qof oo uu madax u yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa qayb ka ah wasaaradda kala duwan ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda caafimaadka wasaaradda amniga wasaaradda gargaarka masiibooyinka wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha waxaa kaloo ka mid ah culummada Soomaaliyeed oo halkan taagan oo ay ujeedaan waxaa kaloo ka mid ah xildhibaano Soomaaliyeed oo qayb ka ah waxaa ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo iyaguna shirkan joogay maanta guddigaasi waxa uu ka shaqayn doonaa sidii dadkaas loogu gurman lahaa sida ugu dhaqsaha badan shirkaasi marka uu dhammaaday kadib xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan haddana isugu yeernay shir kale oo aan ugu yeernay dhammaan safiirada iyo hay-adaha caalamka ee nagala jooga halkan ama ha ahaadaano UN-ka ama ha ahaadaano hay-adaha international iyo local NGOs-ka iyagana waxaan u sheegnay xaaladda dalka uu maraayo waxaan ku dhiirigelinay inay sida dhaqsaha badan caawinaad u gaarsiiyaan dadkaas ku dhibaatoobay dhibaatadii aan soo sheegay waxayna ballan qaadeen inay sida ugu dhaqsaha badan ay caawinaad arrimahaas la xiriiraysan doonaan waxaa inoo haray shir aan isugu yeeri doono arrimahaas la xiriira oo ah shirka amniga si hay-adaha amnigu ay iyaguna qayb uga qaataan xal u helidda dhibaatooyinka laakiin waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego sida aan mar walba u sheegi doono mar walba oo dalkan dhibi ka dhacdo meesha ugu horeysa oo aniga igu soo dhacdo waxay tahay dadka Soomaaliyeed iyagu inay isu tashtaan inay iyagu isku gurmadaan annagu inaan isku tashanno dib walba nagu dhacana annagu aan xalisan waxaan aaminsanahay maadaama aan leenahay guddi ay xurmadeena iyo hormuud ka yihiin in annagu aan isku gurmadno dadka Soomaaliyeed marka meel walba ay joogaan waxaan ku codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan walaalahooda ugu soo gurmadaan gobollada deriska la ah meelaha dhibaatadu ka dhaceen oo aanay biyuhu iyo dhib ku saamayn waxaan leenahay u gurmada walaalihiin 22 qofood oo xubnaha ka ah guddiga aan maanta halkan ku dhisnay oo aniga iyo madaxweynuhu aan ka ballanay inaan dhisno iyagana waxaan ka codsanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan ay shaqadooda gutaan shirka ugu horreeyana ay galaan soo saaraan baahida loo qabo caawinaadda ummadda Soomaaliyeed ayna iyagoo kaashanaya hormuudka culummada Soomaaliyeed ay iyagu bilaabaan sidii ay ula hadli lahaayeen dadka Soomaaliyeed sidii loo caawin lahaa intaas ka sokow wixii yaalla gargaar ama bac ama teendo ama daawo oo ay dowladdu hadda hayso waxaan ku bixinaynaa amar in la gaarsiiyo dadkaas dhibaato qof walba oo ku waxyeeloobay waxaan leenahay waa lagu soo gurmanayaa intii dhibaata ku gaartay waa u duceynaynaa waxaan u ballan qaadaynaa laakiin anigoo ku hadlaya magaca dowladda federaalka Soomaaliya in wax walba oo dowladda Soomaaliyeed ay awoodo inaan laga hagranayn dadkaas meel walba oo ay ka joogaan gobollada Soomaaliyeed ee dalka ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed mar labaad waxaan idin leeyahay wanaagga ugu badan dalka wuxuu ka dhacaa markaad idinku soo gurmataan soo istaaga mar labaad caawiya dadkiina iyo dalkiina waa mahadsantihiin